ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 23aad waan u dulqaadanaa masiibooyinka. Bar ilmahaaga dulqaadka sabarka marka ay dhacdo naxdin leh soo gasho reerka sida qof qoyska ka mid ah inaga dhinto. Tusaale ahaan, dhimashada dabadeed haddii aad aragto ilmahaaga oo ay ka muuqato calaamadaha caanka ah ee walwalka caruurta yaryar lagu garto, sida feejignaanta oo liidata, xanaaq, eedayn iyo oohin fara badan, waxaad u baahan tahay markaa in aad wax la qabato ilmahaaga oo aad caawimaad u raadiso. Ogow waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Waan u dulqaadanaa masiibooyinka. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.